hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ayaa ka digtay duufaan ku soo wajahan gobolada waqooyi iyo kuwa bari ee Soomaaliya muddo sanad ah kadib duufaantii Saqar ee burburka ka geysatay Geeska Afrika. Saadaal ay sameysay hay-adda FAO ayay ku sheegtay in duufaantaas oo loogu magac daray Kiyaar loo malaynayo in ay la timaado dabaylo awood leh iyo roob kuwaas oo saameyn ku reebi doona Puntland iyo Somaliland. Duufaanta Kiyaar ayaa ku soo dhawaaneysay waqooyiga badweynta Hindiya waxaana la filayaa in 4 ilaa 5 maalmood ee soo socda ay saameyso inta ugu badan ee Puntland iyo Somaliland ayaa lagu yiri digniinta FAO. waxa ay duufaanta ku hormari doontaa deegaanada Puntland 96 saac ee soo aadan 24 saac kadibna waxay u jihaysan doontaa Somaliland. Duufaantu waa ay adag tahay wayna roob badan tahay hay-adda caalamiga ah ayaana ku talinaysa in loo diyaar garoobo sidii looga jawaabi lahaa qaylo dhaanta dadka.